وعن أو وناكسن داوديال ملك كستو أنك داونيسان يحل كستو يدين تهبا كسو دوادا برنامج كي فانكا إي سوغانتا أو هذا يوكالات كداوتان تلفزيونك عالمي رويال تي في maanta waxaa marti inoogu ah fanaan weyn oo aad wada garanaysaan Cabdi Baadil Ibrahim oo ahaa mulxamiiste laf dhabarkii hobalada waabari Cabdi Baadil ku soo dhawo TV-ga caalamiga Royal TV dhawahay ma tahay waxaan aad kaaga mahadcelinaynaa maanta balada aad naga aqbashay inaan wareysi aan ka qabano ugu horeyn su'aasha ugu horeysa hadii aan ku weydiiyo halkeed ku dhalatay halkeed ku soo barbaartay anigu waxaan ku dhashay qalaf ayaan ku dhashay mar laakiin waxaan ku barbaaray beledweyne ayaan ku barbaaray yaraanteedii dugsi quraan aan ka bilaabay marka waxaa lagu tiriyaa inaan ahay nin reer beledweyne xamarna waan imid ساو ما بدين حمر حافظ المدينة أيان الكانا دكس قرآن أصلا كدكتي لبضبة بلدوينة يو حمر سود الجي مركا إن أنت بدل لك وحنو بدنا بلدوينة أيان كبر باري فنكي يو وحبرشة دينا هنكبل لاوي فنانين تصومالي ورنا ريب وهرب بلدوينة كسوت بالله عم هيران أنتوا بدن أبغى ما سمعته سؤال شيء لو بدي أنكو فيديو أنت هذا فنك على كل صوبيرين مجرى فنان عاد عليك وأديك سجرت أنت أديك هذا فنان هذا نقل كور أنتي أنا فنان نقل كور وارنتها يران تيدي markii mataqaana la yariyahay adigu waa iska heesaysaa oo dariiqa adoo maray iska heesaysaa ama idaacadaha markay soo galaan waa dhageysanaysaa laakiin waxaan ugu jeclaa Allah naxariistay Cabdi Salaad Aadan Baardilaash fanaan qaali hortada dheere lagu qoray cabaariya markaad xagayga سوق له عسامي واللي غاي قبطا ما شاء الله وفنان أدعو معه لك دمرك لك دمرك إن وحن أوجع لهاي إن فنانين بدلوا ندقيستوا الجيران لكن نوع بوضوق أنا بقول زهرة مروهلية أيام ولي بو قبلها هذا صوب بحي فنانين تور مشي لكن قبلها صوب بحي waxaan jeclaan lahaa sida Zahra Mire codka meesha ay ka gaarayso oo kale sababtoo ah iyadu fanka sida aan dareemayo kor iyo hoos waa isugu mid labadaba korna way tagaysaa inta badan ragga dib bay ku qabaan in ay dumarka la heesaan laakiin iyadu heestan miyan ka bogsanaya sida beer wax dhaliba marka leedahay waxay gaaraysaa أنا ولا عميست أنا هاي واقع أنا وقت كمان كماش وجود ضبين ماش سجارسة أنا أقول كرب وقارسة كرب وقارسة الدون كانوا حاول عدك الوتر تموع عدك إن سرطين مركا قبل ناس أدبي يعني عد كذا يقنع وعم دقيسة
قاضي اللي كنت السعادة يا دابك aad baan kaga mahadcelinaynaa sidaad noogu sheegtay markaad ku soo biirta fanka heestaadii kuugu horeysay ee aad qaaday eed ogaatay inaad fanaan tahay ee aad la soo istaagay maslaxa sanadkay ahayd waxay ahayd adigu 79 ayay ahayd inkastoo aan yaraanteedii ubax kacaanka aan ku jiray oo aan heesi jir laakiin markii aan dee isbiday inaan ahay nin heesi karo masax isreey karo waxay ahayd 79 bal heestaa wax ma la sheegay heestaasna waxaa ka mid ah heestan amran baa la yidhaahdaa soomaaliyana aad bay macnaha caan uga ahayd eryada waxaa iskala filfil xagga laxanka iyo muusikada isagaa iskala afartiisa geesood waxa kugu asteeyaa baanara uurahooya may gelin ifkana kuma nara weli lama amaanin amraan jacaylkaaga i abbaaray halistaataydiyo beerkuu ag joogaa oogadu ku faafo i idleey anigee amranay ma og tahay aragaaga oo qura kumaan iibsadan adduunya aragaaga oo qura kumaan iibsadan adduunya kumaan iibsadan adduunya balweyne jooga hadda balweyne maasha Allah balweyne annaguna kula joognaa waa hees aad u macaan heestan waa heestii kugu horreysay aqaan waa heestii aad kusoo gashay sahel kale kusoo uga qayb galay hoblada waa berina aan ugu biiray annagoo dhowr ah hirgelinta heesaan ka qayb galnay marka waxaa la yidhi kaalinta koowaad inta gashay ha yimaadeen golaha murtida iyo madadaalada marka waxaanu ahay markaa ilaa 14 qof axmed sharuulla ka mid ahaa allah u naxariiste zahrada waa ka mid ahayd بنت عمر قاعدة كم ده هيد أنيجا أنت الحسوسته مركا والو بدنين عبد الله شريف باستو ويا كم ده شمالي أحمد شمالي مركا تصور بيرتي هولد وابري وقت كم من نقطة فنان كم ده هولد وابري هستي كوه رئيسي أتقف دمر أرض قادان أحمد نوشي كتان waxaan xusayaa xabiib xasan tuuxow markaan hoblada waa beri kusoo biirnay heestii ugu horeysay markaa waa beri ahaan aan gabar la qaado xabiib xasan tuuxow ugu horeysay marka
waxaana ka mid ah heesta guurku waa laba waxaana alifay nin la yidhaahdo firin oo gabya ahaa tahay haddii aan dhanka heesaha waxay ka yeelanayno riwaayadihii berisamaadkii markii aad kusoo birto walada waa bari riwaayadee kugu horeysay ee aad soo barigtaan adigoo kamid ah walada waa bari riwaayadihii waa runta anigu riwaayadaha saa uma aan mataqaanaa wax riwaayada saa uma dhigin laba riwaayadoodaan wax ka dhigay ka joog adiga maahee anigii barre maxamed fiidow ayaa heesaha la xameynay barre maxamed fiidow waa nin abwaano aad mataqaanaa laxmiistana ah marka riwaayadiisa ka joog adiga maahe ayaan anigu waxaan ahaa actorkii labaad weliba axmed ishaar actor ahaa iyo shankaroon axmed sagal iyo kadib waxaa wax ka dhigay riwaayad la dhihi jiray shan qarni iyo shii shan qarni iyo shii macnaha waxay ka sheekeynaysay taariikh hore waagii dee adduunku uu adduun ahaa ee aan dhar la qabin la qaqawna marka waagaa jacaylka siduu ahaa waagaa laftigiisa jacayla jiray mugta صح ya ها kadibna isbedel dhaqamadii dambe Soomaalidu markaas siday ahaayeen siday u noolaayeen waxa kamid ahaa riwaayadaas waxa wax ka dhigay Muuse Ismaaciil Qalin Allah u naxariisto الله يرحمه iyo aniga iyo Timijile Zahra Mir Waliye iyo Shankaroon Axmed Sagal iyo Namca Yaasiin Caraale marka markaas aan afar ku wada qaadeen hadda Namca Yaasiin caan ku noqotay kamid ahaa اساسا kamid aha marka de qabti baa dhacday oo
anigu beydkaygii daaqadu ka booday laakiin dib baan usoo cusboonaysiinaya dadweynaha waxaan u ballan qaadayaa in heestaas aan dib u qaadi doono xitaa aan anigi zahramir aan dib u wada qaadi doono iyadoo casriyaysan riwaayaddii labaad waxay ahayd ka joog adiga maahe iyadana marka anigu dadka marka waxaan ahaa asay iscaan bixiyey dadka riwaayadaha ku caan baxay ma ahayn dadna waa dad riwaayad ku caan baxay dadna waa dad ayaga iscaan bixiyey ayagu heesahooda iyo fankooda ku caan baxay hanuuniyaa ka mid ah bashiir hanuuniyaa ka mid ah yaa fanaanin badanaa ka mid ah ya oo fankoodana la jecel yahay anigu marka abwaanintana marka la yidhaahdo ninka aan mucjisooyinka aan u arko waxaa weeye waa Sangub sababtoo ah dhowr qof uu isu geynayaa sheekuu sameynaya sheekadaasna bug bay leedahay cirka ku dhegeysaa way hirgelaysaa ya fanaan caana iyo riwaayadan ninkaasaa ku qorxoon iyo waxaa ma raadiyay afarta meeshaa joogto ma heesi kartaa ha adigu wax ma jeli kartaa ha adigu wax ma samayn kartaa ha adigu kaa ma qaban kartaa ha kaalay isu imaada waxaa sameeya riwaayaddeena cirkay ku dhegeysaa intii kasoo qayb gashana caan bay noqonayaan waa wada fanaaniin ninka aan abwaannimadiisa gacanta u taagayna waa ninka heesahaagii hore ayaan weli ku jirnaa markii aad kusoo biirtay hobolada waa beri badanaa heesahooda waxa ay u badnaayeen wadani ma jirtaa heese wadaniya ama aad qayb ka qaadatay ama adigu aad la hamaysay ama adigu miraha aad lahayd xilligeeda berisamaadkeeda waa jiraan aaday u badan yihiin hadda laakiin saa uma xasuusto laakiin waddanka markuu mataqaanaa adigu markaa xoogaa madaxa afka isla soo galay dagaaladii iyo wixii rabshadii iyo buuqii iyo waxay bilowdeen ayaa waxaa jirta hees la sameeyey oo la yidhahdo soomaaliya soomaali baa fanaaniintu waxaa weye waa fanku waa waxa keliya dadka kulmiya oo isu keena bulshada fanka marka heestaas soomaaliya soomaali baa leh aniga iyo saada cali iyo shankaroon axmed sagal iyo cabdiqadar allah naxariista afran ku qaadaynay ya waxaana la xameeyey cabdi tahliil laakiin dee markii waddanka laga soo tegey ayuu cabdi tahliil dib usii qaaday isagana mataqaanaa waxaa ku kaliftay inuu dadkii ku waaniyo laakiin originaal iyadoo duuban telefishinka qaranka ee soomaaliya ayaanu u duubnay ee haye kolley maray tahay way soo bixi doontaa xusuusanayaa oo dadkan uu xusuusinaya inkastoo inaan waqti u weyn hees kale waxaa jirta taageerayaasha aad u jecel yihiin heesta abaayo oo markii dambe lasoo casriyey oo hataa dad afrikaana lagu dul saaray oo markaas hees aad soomaalida u dhegaysataa bal heestaa bal yaa la xameeyey heestaa taariikhi leedahay heestaa markii hore waxay ahayd gobol madoon allah u naxariistay ibraahim baadil ayaa qaybta koowaad iyo faadimo duur ayaa wada qaaday marka waxayna ahayd kala jacaylka guumooye aboowe ay ahayd qaybtii koowaad marka anigu markaa waan la joogay qaybtii labaad ayaan anigu dib usii qaaday waxaana ka mid ah jacaylka geeskaaga abaayo marnayuu ku gesbarine abaayo ijiyo hasidaynin abaayo
jacaylka geeskaaga abbahay marnayuu ku geesmarine abbahay ijiyo sii daynin abbahay galabta caawaaye farxadiyo damaashaadkani galkeeni weeyaane galabta caawaaye farxadiyo damaashaadkani galkeeni weeyaane guwaliba ana iyo wiil guwaliba ana iyo wiil ka barinne sida garo gacaladaay sida garo gacaladaay guwaliba ana iyo wiil guwaliba ana iyo wiil ka barinne sida garo gacaladaay sida garo gacaladaay sida garo gacaladaay sida garo gacaladaay aniga lafteyda qudhayda aad baan u jeclahay heestaan oo dhageysta iyadoo aad loo casriyey oo music afrikaana sii dul saaray qaar baa waxay dhahaan cabdi baadili afrikaantuna halkay iska soo galeen heesaha iyo horo ayaan weli ku dhex jirnaa maxaad kaloo dadatan caawo dadweynaha ku daawanayo usoo bandhigi lahayd waa jiraan waxaa jirta hees cusub oo aan aad u jeclahay oo qiimo ii leh oo aan ku sameeyey Holland gaar ahaan magaalada Delft oo taariikh ila waxaan alifay saaxiibkay ama samigay Cabdi Qani Garyare laxanka waxa saaray Cabdi Baad muusigana waxa saaray nin la yiraahdo Galeyr ما شاء الله oo kamid ah dhalinyaradii hoblada waa bari daayirta markaa soo koraysa qurbaha nooga daba yimid marka waxaan xoogaa maaragtay ballaan ismaayada heestaasi caabud waaq waxaa laga yaabaa 82 ayaan caabud waaq tegay magaaladaasi ciideedu waa casaan sida ay muuqata waa dhul aad saaw cas marka aroor iyadoo ay tahay waxaa xusta annagoo soo kacnay markaad magaalada xoogaa socoto oo sidaa u yar socoto markiiba waxaa ka hor imanaya duurkii haddana magaalada soo aadaysaa dhinac kale u soconaysaa waxyaad markaa saa u socoto haddana duurkii baa ka hor imanaya duurkii geedihii hadda laakiin internetkan ka daawado waxaa la yidhi wixii maba jiraan daaraa ka dhisan oo dawayaa ka dhisan oo yaa marka bal halkaa caashaqa naga galay ayaa hadda u yar heesayna waxaa muusigada sameeyey ninka la yidhaahdo Galeyr oo walaalkii waa walad waa beri laakiin isagana ahaa da'yartii soo koraysay marka ay waa beri kusoo beeri lahaa muusiga siyaasada muusigii siyaasada bal heesta waxna maqashayba
عابدوا
ما شاء الله وهيسأل معنا وهيسأل لو شقي إن كان عبد واق أو ذكيني عبد واق ما غير عبد واق سنة قبضة حكم ذا أيه تاسي وهيسها عصباء دبل ولي بتروح أنا في ليا إني هذا ورئيسه عد ما تورث تيفيك رأي نسيب يا شيء ليك بعده ما جرى هيسكلوا عصري أتصل صار تايجا أو سنة لو ذا كل بيت ما سنة هي دافع أدي بسوع سبونيسيس أما كوا عصب ها وجرا حكم إذا هيس لي رادو هبلها قالية إن مركا هبلها قالية وحا قرب إيرسي إن كان لي رادو عبد الولي كريرة وريها عنك إن إيو أديك الاتجاه مركا إنك isaga waliba bataqaana qaabkii loo duubay wixii iyo gabadhii iyo wixii aan isla keenay oo macnaha aan iskala engineering cabirkeeda maxaa marka gabdhaha marka dad badan waxaan arkay Facebook waxay ugu soo qorqoray dhaqanka dadkii hore deefanka ma soo interest uma siiyaan mana soo galaan marka waa dadkan casriga ah wixii waa wax casri ah gabadhuna waa gabar casri ah heeskuna waa hees casri ah marka qaabka u jilayso iyo labiskeeda dadinka wadanka naga soo eriyo Soomaha wadanka dad naga soo eriyateen generationka cusub ee hadda socda ee da'yarta ah dhaqankoodii iyo fikradoodii aan qaadanayna sababtoo ah teeni waa la diiday oo wadankoona la ka soo eriyo adinkuna xafladaha ma soo gashaan Soomaha ayaga soo gala ayaga marka qaabka u dhaqmaan anaga wala dhaqmayna أنا هست وحول إذا هست ساعتي للضوء si casri loo duubay ha أنا هست هبلها قالي وان داود وهس أدون أكسن marka yeen qalad iga fahmin dadweynaha waxaan codsanayaa inaad qalad iga fahmin ya waxa wax casri ah dhalinyaradu waa dhalinyaro casri ah fankuna waa fan casri ah موسيقى casri داود يا لوحان لو داوتان هستي هبلها قالي وكل قي فنان كوين أهنا من لحميستها عبدي بادي إبراهيم داو شوعان dadka hanankiyo quruxdaadiyo qorqornaanta jirkaagiyo tallaabada qiyaasta leh hanankiyo quruxdaadiyo qorqornaanta jirkaagiyo tallaabada qiyaasta leh umanay dabeecadaada asrubta leh qalbigaaga safiga umanay dabeecadaada asrubta leh qalbigaaga safiga انت بقادرك كسيي منك ما قادك رو انت بقادرك كسيي منك ما قادك رو وبحن ادقون إيقا قبو حبيبي
gabdhaha qaaliga kumanay adaa ka mida 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 oo baxan udgoon iga qabo iga qabo iga qabo xabiibi gabdhaha qaaliga kumanay adaa ka mida 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 inta haddii aan ku soo gabagabayno heesta aad daawanaysayna waxay ahayd heestii hablaha qaaliga cabdi waa hees aad u wacan sanadihii ugu dambeeyey ee waddanka aad ka soo baxaysay ama bilowgii burburka maxaad ku xasuusataa heesihii kugu dambeeyey oo aad qaaday ama markaas oo ilaa hadda aad xasuusatid waayo qof waliba meeshuu ka yimid wuxuu ka haystaa sawir gooniyo xaafadaad ku dhalatay kusoo barbaartay weli markaad dib ugu laabato waxaad xasuusanaysaa si u dhisnaydii qaabkeedii magaaladii muqdisho ahayd magaaladaadii gurigii fiyooraha ee fanaaniinta heestii kugu dambeysay ee alla ilaah aad tiraahday wallahi heestaa ma hilmaami karo heestaa ahayd horta anoo waddanka fankiisa u eryanaya oo markaa dee laxmadaydii iyo fankaygii uu socdo oo weliba cajilad qaaci isla soo saarnay saado waa wada garanayaan dadka ayaa waddankii mataqaana u isbedelo meeshii dagaalo ka dhaceen dagaal sukaya dhibaa iska dhacay horta laxmada aan sameeyey laxankaygii igu macaanaa wuxuu ahaa naftayda ku jiraba waxay hayso jamashada adaan ku jeelanahay jacayl baadigu ayuu ahaa oo qaaday 9-kii bid heestan bid ma jiifsado caawadi daraartii ma joogi karo dhinaca aad iga jirta qalbigu jiibaya hayeshee dambay ku joogtaa jirba igu helay bannaan jabbaanka lushaa qatara talaa iga jahwareersan talaa iga jahwareersan dadka cusub waxaan kula talinayaa heesta markaa laxanka samaynaya in ay la doontaan dadka laxan hadday samaysanayaan qof kabanista ah ama codkooda marka hore lagu hagaajiyo topic galangala iga raalooya marka codkooda in lagu hagaajiyo kabanka macnaha codka marka hadda waxaa soo baxay bahal la yiraahdo auton oo codka lagu totoosiyo qofkii inuu fanaaya in kale lama garanayo cajalada dhageysataba waa isku wada cod dadkii waxaana keenay dadkii music program ayaa lagu sameynayaa codkiina program marka waxaan kula talin lahaa kabanka waasaan kusoo marnay anaga jidkaan soo marnay oo dadkii naga waaweyn axmalaaji iyo xudaydi iyo ayna soo bareen codkaaga iyo kabanka waa inuu islaado haddii laakiin aad tiraado isma lahanayaan marka kii saas ahaa ayaa lagu toosinayaa auton program baa lagu toosinayaa adiga marka inaad fiicantaa isu malaysaa marka waxaa leedahay kii fanaanka iyo kii fanaankaynba oo fanaan waa wada fanaan codkii dadku muusiga waa isku wada egyihiin marka haddii kan lagu soxo anaa ku dhahay markaa wargaarsii meeshii adaa qof cod xun ma jiro dadka ayagaa qalad fahansan mogi hadday kabanka tareen kusoo qaataan codkooda waa hagaagayaa
جيدتانكي يهوستي إني أتكلم فهمها ها سألو جدا ها هذا مركز سارع على حفسيني نفتيذا كوجر مركز حفسيني حتى وحلقة بعيد حتى وغلط جرتي ده هذا توم كذا دقيقة دان ديجر مكت مركز هدي أن كان لصومرين أنا وصومري قف كستوى صومري مركز أنا وفنان بأنا هاي كلي لبسوا استاجس مش مدة كذا عرضت كذا أدير ولا إسبر إن كور لا يهز كور إن لا يهز ولا إسبر هاي تصعب معانيت إن وحقاد وفر حيتنا جعلي يا جمال لك هايو جعلي يا حندما أنكو جونو جعلي يا جمال لك هايو جعلي يا حندما أنكو جو لحن كاسن أنا سمي أدبا أصلا وفر حي مركو جانجو إلى سوقاتي إن أي صومالي ودان قبصت هستان سديتني سقالكي وحال الشيء لحنك وفينا سومالي هذيك قاعدة سديتي سقالكي أنا أها لكن هذا ضد بدن أصاب بحي دنيا بدن إن وحنا لكن كون يا فنانين إن أي كمان لحمة قصة مستان يا مركا إن وحنا حصيا سديتن إيو أفرتي هسي صاب بحي إلا محي سديتن إيو شنتي إلا سديتن استدي مركا دمان عان نقضي أو حنا ضمني يعني سأل على سديتن استدي أيام ضمني الله يوامي
عليك واسعد معنا عبد البادل waxaan taaganahay gunti iyo gabagabadii barnaamijka markii aad ka soo dhafto wadanka aad imaaday qurbaha adigoo soo koobay maxaa ku yaab badnaa oo la kulantay waxaa igu yaab badnaa aan la kulmay oo aan la yaab waxay ahayd kow markaan imid maxaa halkan ka soo doontay tii kugu horeysay maxaa halkan ka soo doontay waxaan ku jawaaba garan waay iyo sababtaa u timid maxay tahay marka la isdhiibayo waa inaad been sheegto mugta beentii baa ila adkaatay marka 6 bilood baan isdhiibin oon lahaa warniyo adoo nin weyn oo fanaan ah markaan meesha istaaga waa ka soo noqdaa maxaa la bulkaadiga waa intaas wadanka hagaagay oo wallahi wasdiibitaanka wallahi muxuu ahaa jooqlan la yiraahdo iyo walaalkii iyo meesha Berlin ayaan koox ku sameynay marka isdhiibay yiraahdo anaga qaxooti baan nahay markaas aan waay markaan meesha tago dib u soo noqdaa maxaa iraahdaa waa la idilay dheh waa la xiray dheh waxa dhan waa been markaasaan meel waxaan noo yaab badan ma Yurub waxa u timid been sheegto ya ati ku yaab badan waxyaabaha igu yaab badan Yurub waxaan u imid inaan been sheego Soomaaliya been ku sheegi jiray Soomaaliya mugta inta runta sheegto aad u yarta hadaan runta isu sheegno Soomaaliya horta beenta inaan iska dayno wax ka wanaagsan ma laha been wax la yiraahdo Soomaaliya wadanku wuxuu ku rugmaday waa been nin run sheegay aad u yarta markaas waxa ay maxay raada waa lu dilay waa la xiray hadii kale wax sharci lagu siinayo 6 bilood baan mermeeray markaasaan waxa eray bal kulli wadankiina kuma noqon kartid beenaha bal hal ii qoro qof aan been isku dhiibin mal ana xawjada isdhiibitaanka nin walba been u sheegay ama dawladda been laga sheego ya marka inaan duceysano wax loo dhaamo Soomaaliya oo Ilaahay wadanka nabad nooga dhigo oo beentan ka duceysano beenta gabagabadii aan taaganahay iyaad ka xusaysaa oo salaamaysaa markaasaan hees ka sameeyay heeskii sameeyay ayaa wuxuu yahay dalkayga hooyo ka soo dhoofitaankaygii dalkayga hooyo ka soo dhoofitaankaygii Berlin markaan ka degay ee waayay dadkii dumarkii duulkii aan aqoon jiray dalkayga hooyo ka soo dhoofitaankaygii dalkayga hooyo ka soo dhoofitaankaygii Berlin markaan ka degay ee waayay dadkii dumarkii duulkii aan aqoon jiray ku ducaystay kaligay cirkuu haygu soo dug dhulkuu daqan haygu noqon cirkuu haygu soo dugi dhulkuu daqan haygu noqon dambi maan gelin dakana qabi maahi anigu dambi maan gelin dakana qabi maahi anigu waxaan nahay daacada daraja dalkaygaan ku leeyahay dalxiis macaane dhulkaygu daraja dalkaygaan ku leeyahay dalxiis macaane dhulkaygu nimcad iyo barwaaqada dushada durdurtay iyo dayr helay hididi helay hididi dowlad calamo Soomaalida helay hididi helay hididi dowlad calamo Soomaalida gabagabada ayaan taaganahay yaa tarka ka salaamaysaa hal iyo labo waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed salaanta muslimkan ku salaamayaa
hooyaday Khadija Cabdikariin hooyo ku salaamaya salaan raxmad la igu doon waxaan salaamayaa dhammaan ehelkayga qaraabadayda fanaaniinta aan ka soo bilaabo Aamino Baadil Xawo Baadil Maryam Baadil Safiya Baadil Cabdirasaaq Baadil Ibrahim iyo Cabdiraxmaan Ibrahim Baadil wiilkii Ibrahim Baadil oo fanaanka hooyadii udgoon waa salaamayaa Faadima Caray iyo carruurteedana waa salaamayaa Farxiya iyo Ladan iyo Mama Taliso dhammaan waa salaamayaa Naciima Abshow iyo Nasra iyo Axmed Zainab waa salaamayaa Ri Axmed Day waa salaamayaa Zainab baan ka salaamayaa saaxiibkii Garyar Sayid Ali Galayr wasna organka tumay waxaan kaloo salaamayaa Axmed Raxmar waa salaamayaa isaguna ubadii aan soo koobi karin oo kulliba qaar ay qabsan doonaan fanaaniinta nin aan aad u jeclaa waxa jira la yiraahdo mataqaana Sugaal Cabdullaahi waa salaamayaa asagana Sugaalow waa ku salaamay dhammaan fanaaniinta howlada waa beri ma kala soo duubayaa haddii aan mid ka sheego haduu dambiga ka imanaya waa beri waa salaamayaa kooxii kalena waa salaamayaa fanaaniinta xamar ku nool kulli waa idin wada salaamayaa salaan gudoomo qaali iyo gudoomo oo raxmad leh oo wadaninimo ku dheehan tahay aad baan anaguna kaaga guddoomay kaaga gaarsiin doonaa barnaamijkeena intaan kusoo gabagabeeyna waxaan kaaga mahad celinayaa sida aad sharafta leh oo nooga yeeshay inaad wareysigan aad nasiiso daawadayaal halka nagala socotaan waa Royal TV waxaan intaa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo idinkaga imaanayay wadanka Holland waxaan idin socodsiinay anigoo ah Sayid Ali Caseer tan iyo intaan kulmayna barnaamijkan barnaamij nimid ah anigoo iyo Baadil iyo camera banka Ayr Qaabo iyo Galayr waxaan kaga tagay dhamaanteen السلام عليكم